Down, down, Zaynatum! salaadii jimcaha kadib ayaa boqolaal qof oo muslimiin ay isugu soo baxeen afaafka hore ee baarlamaanka dowladda South Africa ee magaalada Cape Town. mudaaharaadkan ayaa waxaa looga soo horjeeday gabadfalyada ka dhanka ah dadka Falastiiniyiinta ah kuwaas oo ay geysanayaan ciidamada dowladda Israa'iil. qowmiyadaha kala duwan ee muslimiinta dalkani Koonfur Afrika ayaa waxa ay isugu soo baxeen baarlamaanka magaalada Cape Town kuwaasoo ku dhawaaqaya erayo ay ku muujinayeen cambaareynta dowladda Israa'iil. waxayna doonayaan in dowladda South Africa ay taageerto go'aan u istaagga dowlad madax bannaan ay Falastiin hesho. madaxa muslimiinta South Africa Sheikh Hassan Hendrik ayaa waxa uu baaq u diray dadka Yuhuudda ee ku nool waddankani Koonfur Afrika si ay u taageeraan go'aan u istaagga dowladda ay hesho ummadda Falastiiniyiinta ah. jaaliyadda Soomaalida qaar ka mid ah oo ka qayb galay mudaaharaadka ayaa waxay TV-ga qaranka u sheegeen in Soomaalidu ka mid tahay dadka banaanbaxay isla markaana aad uga xun yihiin tacadiyada ay geysanayaan ciidamada militariga Israa'iil taas oo aan dhamaadka lahayn. qabanqabayaasha mudaaharaadka ayaa waxay ugu dambeyntii warqad qoraal ah u gudbiyeen baarlamaanka waddankani Koonfur Afrika kaas ay ku muujinayeen in ay ka xun yihiin dhibaatada ay ku haysato Israa'iil dadka Falastiiniyiinta ah isla markaana ay ka dalbanayeen dowladda South Africa inay taageerto dadaalada lagu doonayo in Falastiin xurmo ay hesho. Abdullahi Ibrahim Dasar, telefishinka qaranka Soomaaliya, Cape Town, South Africa.